mudane Jalaane Nuur Iikar ayaa gudoominayay kulan guddiga amniga baarlamaanka maanta ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa oo ah xafiisyada guddoonka iyo guddiyada baarlamaanka ka oo looga hadlayay ammaanka dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. mudane Jalaane Nuur Iikar kusumaha gudoomiyaha golaha shacabka oo markii kulankaasi uu soo gabagabay kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ee waxyaabihii looga hadlay. maanta oo xataa waxaan shir degdeg isugu yeeray guddiga arrimaha gudaha ee amniga maadaama baarlamaanka uu jiray inta xubnihii ka joogay shir degdeg ayaan galnay sidii dhaxdadii mataqaanaa oo jimcii dhaxay aan ugu wada hadalno aan isu wargelino mataqaanaa wixii ka dhacay meesha iyo maadaama baarlamaanka uu yahay meesha wax kasta mataqaanaa ay ku soo hirin doonaan oo mataqaanaa oo shacabka ay ka sugayaan mataqaanaa in baarlamaanka doorkiisa uga qaato mataqaanaa amniga qaranka oo Soomaaliya kadib markaan dood dheer iyo falanqeyn dheer la wada galay ay warbixin la kala dhageystay ayaan oo ra'iisul wasaaraha aanu tagnay asaga noo yeeray in mataqaanaa guddiga amniga uu arko oo is wada aragnay ra'iisul wasaaraha wixii warbixin ahaa wixii talo ahaa meesha ayaan mataqaanaa ra'iisul wasaarihi ku siinay waxaan isku fahmnay in guddi labada gol ka mid ah oo kuweena amniga baarlamaanka iyo guddi golo wasiir ah oo isku dhaf ah in mataqaanaa la magacaabo arrintan si mataqaanaa baaris madax bannaan loo sameeyo si shacabka mataqaanaa waxay ka sugayaan xukuumadda iyo baarlamaankaba loola socodsiiyo arrintaas ayay ku saabsanay shirkii degdeg ah maanta aan galnay guul ayuu noogu soo dhammaaday insha allahu tacaala mar labaad ay is arki doonaa mataqaanaa ayagoo ay u dhan yihiin guddiga iyo mataqaanaa wasiiradii iyo taliyaasha oo dhan soo ra'iisul wasaaraha noo ballan qaaday markaas ayaan mataqaanaa warbixin guud oo ka soo baxay baaristaas ka bacday ummadda loo sheegi doono insha allahu tacaala arrintaasi ku saabsaneed waana guul baa noogu soo dhammaaday ilaahay mahadiisi waxaan rajaynayaa in wax ay ku qancaan ummadda Soomaaliyeed ay ka soo baxaan shirarkan degdeg oo hadda ka socdo baarlamaanka iyo golaha wasiirada. kulankan ayaa qayb ka ah fulinta